ciidamadu waxay u qaybsanaayeen beelbeel ciidan kastana wuxuu hoos imaanayay warlord nimankii ahaa oo waxaa la dhihi jiray waa ciidankii hebel waa ciidankii hebel waa ciidankii hebel laakiin haddana saas ay tahay waxay diyaar u ahaayeen inay u dhintaan oo naftooda ay u huraan dhifooyskana way ku jireen waxaa igu darneed oo aad ii taabatay markii aan noqday wasiirka gaashaandhigga iigu horreysay waxaa ii yimid taliyaha amisom ciidanka amisom nabad ilaalinta ee muqdisho wuxuu igu yidhi wasiir waxaan aad uga xunnahay in ciidankeenu marka qadada loo geeyo ay wada joogaan ciidanka soomaalida ee dawladda inay wada joogaan oo aanan haysan ciidankiina wax qado ah raashin aanan haysan oo kuweena ay khasab ku noqotay inay la sheergareeyaan qadadii loo keeno ay la cunaan heerkaasaan maraynay runtii